dalka Vietnam oo dhibaato weyn ka taagan tahay laaluush qaadashada iyo musuqmaasuqa isla markaana ay xukuumaddu talada dalkaasi haysaa ku howlan tahay sidii loo baabi'in lahaa xadidaad loogu sababi lahaa ayaa waxa amar culus ay dul dhigtay ciidamada nabadgelyada wadooyinka traafikada loo yaqaano sida sharci cusub oo lagu soo rogay ciidamadaasi dhigayo askari kasta oo shaqada ku jira looma ogolaan doono in uu qaato ama lagu arko lacag ka badan $2 waxa kale oo laga mamnuucay in ay qaadan karaan waqtiga shaqada telefoonada gacanta lagu qaato mobilka iyo waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin sigaarka iyo khamriga inta badan waxa jidadka dalkaasi ka dhaca in ciidamada traafikadu iska sii daayaan wadayaal ku xadgudba nidaamka wadamarista ee dalkaasi kuwaas oo laga yaabo in ay dhaafeen ishaarooyinka gaadiidka kala haga ama jidad khalad ah ay soo mareen laakiin wadayaashaas oo dhami waxay og yihiin in qalad kasta oo ay sameeyaan $2 oo ay bixiyaan ay kaga xiran tahay kana badbaadinayso ganaaxii ku dhici lahaa waxa kale oo sida dawladda dalkaasi ay sheegayso ka lumay lacagihii canshuuraha iyo ganaaxyada ee u soo hooyan jiray wasaaradda maaliyadda waxa aanay fududeysay dambiyadu in ay ku sii baahaan dalkaasi taas oo khasaaraha shilalka gaadiidku gaadheen halkii ugu sarreysay ciidamada laga mamnuucay mobilada sigaarka iyo khamriga iyo sidoo kale lacagta ay jeebkooda ku qaadanayaan ayaa si loola socdo waxa dariskooda lagu rakibay aalado lagala socon karo haddii lacag ay qarsadaan ama qalad ay sameeyaan kuwa oo diiwaan gelinaya waxa kale oo lagu rakibay qalab sheegaya mar kasta oo qalad laga galo nidaamka wadamarista uu qaban waayay iyada oo la sheegay in qalabkaasi qiyaasi karo heerka qaladaadkaasi gaarsiisan yahay iyo sababaha jiray waxaana qalabkaasi la sameeyay ka dambays kadib markii la arkay ciidamo inta ay laaluush qaataan ku qarsada geedaha jidadka lagu beero iyo kuwa wadayaasha gaadiidka kula ballama in ay meel u dhigaan si hadhow ay uga sii qaataan